salaamu ullaahi calaykum asxaabteyda, waan idin salaamay. intay galabta waxaan leeyahay galab wanaagsan, intay subaxta waxaan leeyahay subax wanaagsan. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc yar, mowduucaas oo ah maanta oo arbaca waxaa la sheegayaa 21 October 2020 in Maxamed Biki uu ka baxay fanka Soomaaliyeed. Maxamed Biki oo ka baxay fanka Soomaaliyeed. Ma fanka Soomaaliyeed ka baxay mas fanka Somaliland buu ka baxay? That's the point. Yeah. Anigu kalba uma arko fan Soomaaliyeed oo ka baxay, waxaan u arkaa fan Somaliland oo ka baxay. Fan Somaliland oo ka baxay ayaan u arkaa aniga ahaan. Anyway, hadduu Maxamed Biki ka baxay fanka, anigana waan ka baxay fankii Soomaaliya. Maxamed Biki wuxuu ka baxay fankii Somaliland. inkastoo waayahan dambe fanka uu sii xumaanayo, dad fara badan ay ku dheeleen, ya Sharma Boy iyo waxaan la kala garanayn ay ku dheeleen, ma kartay Qamar Sugaan iyo waxaan la kala garanayn ay fanka ku dheeleen. haddana fanku awalka horeba wuxuu ahaa khayaali oo la isku madadaalay ayuu ahaa. khayaalna inuu soconaynin cidal buu og tahay, xitaa ani xataa ogaana khayaali soconaynin. khayaaligu ma sii daba dheeraado, waxaa la isku maaweeliyo waayo fanka. laakiin fanku markaa si fiican u hadalno, fanku iyo hadda wax hadda joogo iyo fan kala dheer. fan markii la dhaho waxaa ka buuxda murti, madadaalo, xigmad, waano iyo wax walbaa ka buuxo. awaanadii hore allah u naxariistee fanka waxbay ku soo kordhiyeen, faa'iidana way lahaayeen. laakiin kuwa hadda joogo, ya iska dhaafee faa'iido, iska dhaafee xitaa naftooda faa'iido uma hayaan. faa'iido xitaa naftooda uma hayaan. calaa kulli xaal, aniga kolba waxaan leeyahay intii fanka ku jirto oo ay ka mid yihiin Nimcaan Hilaac iyo ya Cirra iyo waxaa kaloo fara badan yihiin, ma karta Omar ka mid, Omar oo Toronto joog, maxaa hal mar Toronto joog soo qaaday ninkaas. marka anyway, fanku waa gabagabo, aakhiru samaan waaye. Maxamed Biki waxaan leeyahay allah ayaa ku mahadsan, adigana khaatumada ilaahay ku waneej ayaa maanta iska leh. kulligeen waxaanu jecelnahay khaatumo wanaagsan, laakiin markale waxaan rabnaa inaan iska baashaalno, maqtaban aan ku dhimano khaatumo wanaagsan. kulligeen khaatumada allah noo hagaajiyo. inta fanka ku jirtan waxaa leeyahay, oo aniga iga dambeyso, waxaa leeyahay fanka iskaga baxa, fanka iskaga baxa. Maxamed Biki noo bilaabay, anna waa ku xogsaday fankii, waa idinkiiga tagnay. no more fun, no more hees, ma garteen? marka fan xumaan waa loo adeegsadaa, samaanna waa loo adeegsadaa. adiga kaa u adeegsato ee ku taalaa barada ama abay. aniga maanta marana ku sii dheeraado, mowduuca wuxuu ahaa Maxamed Biki inaan halkan ugu hambaliyeeyo. haddiiba heesihii cunsurnimada ahaa uu iska dhaafay, wallahi I'm so happy. hadduuba iska dhaafay heesihii cunsurnimada ahaa, ya reer Somaliland baad hal door iwasidaan, I'm a rich man, ya hadalkaas yaan ku xasuustaa Maxamed Biki. bal adiga daawanaya, maxaad ku xasuustaa Maxamed Biki? maxaadna maxaad ugala talinaysaa Maxamed Biki maadaama hadda fankii uu ka baxay? marka caannimo waxba ma tarayso, khaatumo wanaagsan ayaa wax tarayso. isagana waxaan leeyahay hambaliyo. ilaah ayaa maanta iska leh, dembigaadii hore allaha dhaafo. laakiin waxaa idinkiiga degayaa, ya heesaha Maxamed Biki inaad iska dhaaftaan, sida Xamdi Kuwiin iska dhaaftaan, sida Cabdihani iska dhaaftaan. wixii dhammaan aad u dhaafteen Maxamed Biki u dhaafa. kolba qaar waxaa jira waan ogahay oo loof ku ahoo Maxamed Biki loof ku heesiise, iska dhaaf, iska leeree. asxaabtii dad fara badan baa jira oo haddaysan Biki dhegeysanin
yaa ayba maalintaasi si kale noqonayso. marka inta BK taageerto, BK wuu ka baxay fanka. haddaa fan ku taageeri jirtay, hadda khayr ku taageer, hadda khayr ku taageer. sida Axmed Biif oo kale, Axmed Khayr, ma garateen? maasha allah, intii gacan ka geysatay waxaan leeyahay ilaahay ajri iyo xasanad hayn ka siiyo. marka waana ku mahadsantiin shaqada aad qabateen. fanka inaad dad ka saartaan, I like it. kan fan maahane, fankii dhimay, yaa fankii waa dhintay. waana mahadsantihiin. hadday habeen idin tahay habeen wanaagsan, hadday maalin idin tahay maalin wanaagsan, hadday galab idin tahayne galab wanaagsan. salaamullaahi calaykum iyo next video. See you. Bye guys.